سعيد عبد الله دني سعيد عبد الله دني سعيد عبد الله دني مدحوينها مامول goboleedka Puntland ayaa ku guuleystay madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya doorasho xiiso iyo xamaasad lahayd oo maanta ka dhacday teendhada Vision ee xarunta Xalane madaxweyne Dani ayaa afka ciida u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay wareegga ugu dambeeyay isla soo gaareen wareegga labaad waxa uu soo gudbay Shariif Sheekh Axmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo codadkii madaxweyne Shariif aadeen dhanka Saciid Dani wareeggii ugu dambeeyay dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay guud ahaan magaalooyinka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeedna waxa ay u dabaaldegayaan sida isbedelkii dhacay sanadkii 1960kii kowdii Luulyo xilligaasi oo Soomaaliya ka xorowday gumeystii Ingiriiska iyo Talyaaniga dalka guushiisu waa dani danta dadkeena waa dani daryeela waa dani dabiiba waa dani madaxweynaheena waa dani danta dadkeena waa dani daryeela waa dani dabiiba waa dani madaxweynaheena waa dani qarnoo diranoo diyaara waa dani sameeya weeye dhabday qaydadkeenani koonfur galbeed waqooyi ilaa bari dani waa lagu joogsani lagu jirsani waa la daawani dani qarnoo diranoo diyaara waa dani sameeya weeye dhabday qaydadkeenani koonfur galbeed waqooyi ilaa bari dani waa lagu joogsani lagu jirsani waa la daawani dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani kalimaya u bedeli dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani Soomaaliya ayaa maanta ka xarowday gumeysiga Itoobiya iyo Qatar oo ahaa saaxiibadii madaxweyne Farmaajo madaxweynaha maanta laga adkaaday ee Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa hadafkiisa ugu weyn uu ahaa in meesha laga saaro madaxweyne Farmaajo oo haatan ahaa caqabada ugu horeysay ee ku horgudboon nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya riyadan iyo sidoo kale saadaashan ayaan ahayn mid haatan